السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkani waa muuqaal baayaha media ku soo dhawaada qodobada warka duhur waxaana warkeena ugu waaweyn Kenya oo ka farxisay madaxweyne Farmaajo amarna dul dhigtay wasiir Cabdirashiid Janan oo duleedka magaalada Mandheera kula kulmay saraakiil ka tirsan militariga Kenya. Madaxweyne Farmaajo oo maanta u dabaaldegaya 3 sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay ammaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyay ciidamo wadooyinka la dhigay. Faroole oo soo dhaweeyay baaqi madaxweynaha maamulka Puntland Siciidani odayaasha soo xulay xildhibaanada koonfur galbeed oo la xareynayo maalmaha soo socda iyo baarlamaanka Pakistan oo ansixiyay in la daldalo ragga kufsiga u geysta gabdhaha reer Pakistan. وحقاق داوديال وسيدة فبراير سنتكم ولا 2020 وديار جروبا وركا هاجا ميديو انتا كفافاسن دولة كينيا يا waxaa ay ka farxisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay amar dul dhigtay wasiirka baxsadka ah ee dowladda Soomaaliya ay doonayso oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. dowladda Kenya gaar ahaan xildhibaan laga soo doorto magaalada Mandheera oo lagu magacaabo Umar Maxamed Macalin ayaa waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in wasiirka Jubbaland ee baxsadka ah dowladda inuu dagaal ka abaabulo gudaha wadanka Kenya. waxa uu sheegay in dowladda Kenya aysan u dul qaadan doonin in wasiir baxsadka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la doonayo inuu dagaal ka dhex abaabulo dhulka Kenya wuxuuna ku baaqay in wasiirkaasi uu ka baxo dhulka Kenya haddii kale ay soo qaban doonaan. xildhibaankan laga soo doorto magaalada Mandheera ee la yiraahdo Umar Maxamed Macalin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka cabsi qabaan in al-shabaab ay ku soo dhuuntaan abaabulka ciidan ee wasiirkaasi uu ka wado dhulka Kenya wuxuuna sheegay inuu ka baxo xuduudda isla markaana uu ku laabto dhulka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay. Umar Macalin ayaa sidoo kale waxa uu xusay in wasiirkan uu baxsad ka yahay dowladda Soomaaliya haddii uu ku sii jiro dhulka xuduudda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya inay macquul tahay in Kenya ay faragelin bilowdo. hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya Kenya ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso qarannimada Soomaaliya isla markaana wasiir baxsadka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ay soo dhaweysay dowladda Kenya. warkan ka soo yaray xildhibaanka ayaa sidoo kale wuxuu imaanaya xilli madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland iyo wasiirka amniga Jubbaland ee la yiraahdo Cabdirashiid Janan Cabdinuur xilli ay warbaahinta ka soo muuqdeen ayagoo ku sugan dhulka gudaha Kenya kuwaas oo sheegay inay dagaal la gali doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. lama oga halka uu ku dambeyn doono wasiirkan baxsadka ah dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale warka ka soo yeeray Kenya talaabada ay ka qaadi doonaan. wasiir Cabdirashiid Janan ayaa sidoo kale waxa duleedka magaalada Mandheera uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Kenya. wasiirkan baxsadka ah ayaa waxa uu sheegay in dhulka xuduudda ah uu u joogo sidii uu uga nabadgeli lahaa weerar dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo qaaday wuxuuna ciidamada militariga Kenya ka codsaday in ay difaacaan weerarka dowladda Soomaaliya ay ku soo qaaday. wasiirkan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uusan dhib ka wadin dhulka xuduudda ah balse naftiisa halkaas uu u sameeyay baday. saraakiisha militariga Kenya ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay soo dhaweeyeen dalabka wasiirkan oo ahaa inuu dhulkaasi ku noolaan doono isla markaana dowladda wadanka Soomaaliya uu iska waardiyeyn doono sidoo hadalka u dhigay. wasiir Janan ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay odayaal ka soo jeeda gobolka Gado kuwaas oo wada hadal ugu tagay wasiirkaasi. 3 sharuudood ayuu soo duldhigay wasiirkaasi oo mid koobaad ay tahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay raaligelin ka bixiso xarigiisii isla markaana ay faraha ka qaado doonistiisana ay ka tanaasusho iyo sidoo kale in mas'uuliyiinta gobolka Gado gaar ahaan kuwa jooga magaalada Dolow inay ku laabtaan halkaasi. qodobka kalena waxa uu ahaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan soo faragelin arrimaha maamulka Jubbaland isla markaana ay u madax banayso dhismaha maamulada iyo kuwa magaalooyinka ah maamulka Jubbaland. waxa sidoo kale uu sheegay in 3daas qodob hadii laga helo dowladda federaalka ee Soomaaliya inuu ku wareejin doono ciidamada taabacsan ee uu hadda la galay dhinaca xuduudda. wasiir Cabdirashiid Janan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhibaato ku hayso dadka reer Jubbaland soo hadalka u dhigay. odayaasha ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Balad Xaawo kuwaas oo ku qanci waayay dalabka uga yimid wasiirka amniga Jubbaland ee dowladda Soomaaliya ay doonayso. wasiirka amniga Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii uu ku laaban doono dhulka Soomaaliya gaar ahaan xuduudda gobolka Gado inuu dagaal qaadi doono taas bedelkeedana laga cabsi qabo in dagaal halkaas uu ku dhaxmaro ciidamada daacadda oo wasiirkaasi iyo ciidamada qaranka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada dowladda Soomaaliya dhawaan halkaas ay geysay.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnayd waxa ay geysay dhulka gobolka Gado gaar ahaan magaalooyinka Balad Xaawo, Luuq, Doolow, iyadoo sidoo kale doonaysa inay gacanta ku dhigto guud ahaan gobolka Gado, sidoo kalena doonaysa inay soo qabato wasiirkaasi baxsadka ah kadibna ay qabato doorasho madaxweyne oo meesha looga saaro madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. sidaan hore u sheegnaba dowladda Soomaaliya waxa sidoo kale ay wadaa qorshe gobolka Jubbada Dhexe ay ku qabanayso isla markaana caasimadda maamulka Jubbaland looga dhigayo halkaasi doorashona ay ka dhici doonto magaalada Bu'aale lagana dhigi doono madaxweynaha maamulka Jubbaland wasiirka duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Salaad Omar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu dabaaldegayaa 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay sanadkii 2017 ayay ahayd 8 Febraayo markii lagu doortay magaalada Muqdisho isla markaana xildhibaanada golaha shacabka codka ay siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ka guuleystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta u ordaya inay qabtaan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dowladdiisa intii uu xilka hayay marxalado kala duwan ay soo martay ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in munaasabada maanta lagu dabaaldegayo 3 sano guuradii ka soo wareegatay inuu xariga uga jaro xarumo muhiim ah oo dowladda Soomaaliya ay dhistay. xarumahaasi waxaa ka mid ah tiyaatarka qaranka, madxafka qaranka iyo sidoo kale garoonka Stadium Muqdisho oo dib u dayactir lagu sameeyay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda waxa ay ka dhigan tahay in muddo har sano ah xilhayntiisa ay u harsan tahay iyadoo shaqooyin culus dowladda Soomaaliya ay u taalo oo ay ka mid tahay doorasho ka dhacda dalkeena Soomaaliya. intii uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa la warinayaa in waxyaabo badan uu u qabsoomay, waxyaabo fara badanna oo ballanqaadkiisa ka mid ahaana uusan qaban. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la sheegayo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu qabtay waxaa ka mid ah mushaar bixinta ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale shaqaalaha rayidka, diiwaangelinta ciidamada qaranka Soomaaliya oo qaab casri loo diiwaangeliyay, iyo sidoo kale in ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre ay wada shaqeeyaan muddadii uu xilka hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. waxyaabaha uu ku fashilmay waxaa lagu sheegay dagaal dowladda Soomaaliya ay ku qaaday madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah, iyo sidoo kale in dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxda qaranka ay dhiibeen muwaadin Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdikariin Qalbi Dhagax kaas oo lagu wareejiyay dowladda waddanka Itoobiya. in sidoo kale dowladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ay weerar ku qaaday siyaasiyiin muhiim ah oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo qodobo kale. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale hadda waxa uu bilowday halka sano u harsan iyadoo sidoo kale la sugayo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, inkastoo ay adag tahay in doorashadaasi dalka ay ka dhacdo maadaama madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ka soo horjeedaan nidaamka doorashada. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidanka biliiska Soomaaliya la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. ciidamada biliiska ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn iyadoo maanta loo dabaaldegayo sanad guuradii 3aad ee ka soo wareegatay markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka xildhibaanada golaha shacabka ay u doorteen. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale waxay xaqiijinayaan ammaanka kuwaas oo ka hortagaya in falal ammaan darro ay ka dhacaan magaalada Muqdisho maadaama Muqdisho maanta ay isku diyaarinayso dabaaldega madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. ciidamada biliiska Soomaaliya ayaa sidoo kale xalay waxa la dhigay baraha muhiimka ah iyo iskooysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho. senator Cabdiraxmaan Faroole oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa soo dhaweeyay baaqi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani ee ahaa in siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta xilalka ka haya dowladda federaalka ee Soomaaliya in 15 bisha soo socota ee Maaj ay iskugu yimaadaan deegaanada Puntland kulan wada tashi ah. Faroole ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani. mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa khilaaf baan wuxuu kala dhaxeeyaa madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani oo markasta weerar iyo eed u jeediya madaxda qaranka Soomaaliya. Puntland gaar ahaan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay kulan wada tashi ah oo la yeelanayo xildhibaanada, wasiirada iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale ee ku jira dowladda federaalka ee Soomaaliya, wuxuuna ku baaqay in kulan wada tashi ay ku yimaadaan deegaanada maamulka Puntland. odayaasha soo xulaya xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa in maalmaha soo socda la xareyn doono. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulamo wuxuu la qaatay qaar ka mid ah odayaasha, wuxuuna sheegay in isniinta soo socota la xareyn doono odayaasha. sidoo kale waxaa la soo saari doonaa liiska xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. xildhibaanadaas oo ah kuwa labaad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in la soo afjaray inta badan khilaafaadkii iyo madmadowgii ka dhex jiray odayaasha iyo sidoo kale dowladda maamulka Koonfur Galbeed. waxa uuna sheegay in dhowaan la soo gabagabayn doono odayaasha isla markaana maalmaha soo socda la soo xareyn doono, asagoo sidoo kale sheegay in inta badan odayaashu ay soo xuleen xildhibaanada oo liiska xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed la shaacin doono.
ugu dambeyntiina baarlamaanka waddanka Pakistan ayaa ansixiyay in la daldalo ragga kufsiga u geysta haweenka waddankaasi ku nool. Baarlamaanka ayaa waxa ay sheegeen inay isku raaceen in meel fagaara lagu daldalo ragga kufsiga geysta. Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa baarlamaanka ku taageertay go'aanka ay gaareen. dalka Pakistan ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu badan ee kufsiyadu ay ka dhacaan, waxaana sidoo kale la sheegay in 10% kufsiga lagu hayo haweenka ay yihiin kuwa aad u da'yar. warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha Haga Media waa naga intaas tan iyo kulantan dambe nabadgelyo.